الله نوكينو إن شاء الله إن شاء الله بسم الله كريم وإيمان دونتا إن شاء الله بسم الله كريم سومالي أي سودوادا وولاشين إدل عبد الله فرماجة أو له قاعد مفرن كسودوادا أنو وحان أتاجنا هاي سومالي هان نو قبيل نو هار فيلين لكن رمتا ويحانون بدنتا هاي رمتا إتشعل ملحن runta ay baa loo yaqaanaa runta waxaa loo yaqaanaa wax xun ayaan u naqaanaa laakiin aniga I don't care qofkii ay tami lahaa qofkii ku farxi lahaa ogolaan lahaa runtayda qofkii dhagaysan lahaa qofkii gartiisa qaadan lahaa qofkii runta ugu ogolaan lahaa I don't care aniga idil Cabdullaahi baa la yiraahdaa fikradeyda idin la qaybsanaya idinkoo ay tabin dadka aflagaadeynin hadiidan idin anficin isaga dareera hay daawanina han idagaysanina banaanka uga baxa videogeyga baan idin leeyahay intaasna waxaan ku soo siyaadiyay aqliga yahay ya tarbiyada ya dhaqanka ya diinta may garteen marka waxaan idin la qaybsanayaa arrinta degdega ah akhbaar degdeg aan idin la qaybsanayaa oo jirta maanta oo igu soo kordhay maanta oo cusub maanta waa muqaddas inaan idin la qaybsado waa muqaddas inaan idin la wadaago waa muqaddas inaan idin sheego waa muqaddas inaan live idinkugu soo fariisto taasi waa meeshaas walaalahayga Soomaaliyeed waxaan maanta u soo galay arrin inaan idin kala hadlo arrintaas ay tahay Roble oo u tagay cimro dalka Sacuudi qoraalkaygana waad aragteen sawiradan soo dhigayna waad aragteen maxay ahaayeen cimrada iyo xajka waa baytullaahi la tago siyaasad ma noqoto waa meesha kaliya ilaahay lagu caabudo waa meesha kaliya dambiga la isaga soo dhaqo waa meesha kaliya ilaahay lagu hor fariisto ilaahay lagu tuugo may maqlaysaan marka waxaan rabaa inaan idin la qaybsado Roble iyo arrinta uu u tagay cimrada iyo arrinta meesha ka jirta waxaan u maleynayaa baryahan khilaafaad inuu naga dhaxeeyay Kenya xal siyaasadeed oo khilaaf ah waxaan u maleynayaa wasiirka arrimaha dibadda in laga wareysanayo waxaan u maleynayaa waraaqdii loo diray inay ogolaatay Kenya annaga cilaaqaadkeen inuu soo noqdo inaan heshiino dhibaatada dalka Soomaaliya ee ku haysta fargelinta inay nagala baxdo inaan noqono dad daris ah oo walaal ah oo daris ah oo nabadgelyo ku wada noolaada waxaan u maleynayaa Djibouti waa loo diray Djibouti dhowr jeer fargelin badan wayna soo gashatay fargelin badan wayna soo dhex gashay Djibouti hadday noqoto tii badeena hadday noqoto tii Kenya guddigii loo xirsaaray iyo hadday noqoto ayaantii dhaweyd u dubay sheegahayay oo ay ahayd maxay ahaayeen peacefulka Africa Unity ee nooga soo horjeesatay ee nagu ataagaysay ee marna Kenya nagala safatay marna badeeni nagala safatay ma garatay ka bacdina annagana aan siinay maxay ahaayeen doorashadii uu istoortay Ismaaciil Cumar Geelle ila asaga istoortay doorasho xor iyo xalaal Djibouti kama dhicin asaga isdoortay isugu shubay waa markii shanaad oo aan ugu hambalyeennay oon ku ogolaanay qaa'inimadii iyo boobkii uu keligii isku doortay horta miyay maqashaan Soomaaliya miyay maqashaan
مين مقشان مين مقشان إذا كان سوقي السوقر ها أما مية ها أما مية مين مقشان ورهاد مين مقشان مين مقشان yes thank you very much thank you very much thank you very much علي سعيد thank you very much walaal marka waraaqdii loo diray Djibouti faragelinta ay nagu hayso kama aysan soo jawaabin ha ama mayana lagama hayo laakiin Kenya way soo jawaabtay faragelinta nagu hayso inaan ka wada heshiino wixii xalaan ka wada gaarno aan nabad ku wada noolaano dawladda daris aan noqono inaan heshiino aan ka wada hadalno wasiirka arrimaha dibaddana wuu ka hadlay waxaan marka idin leeyahay Soomaaliya Kenya iyo Djibouti waa laba watan daris baana lahayn daris ayaan nahay wax walaalo la yiraahdo ma jirto dawladda Djibouti waa dawlad Djibouti dawladda Soomaaliya waa dawlad Soomaaliyeed dawladda Kenya waa dawlad Kenya wax aan walaal nahay ma jirto markee dawlad daris ayaan nahay darisnimo in la isku xishmeeyo ayaa qurux badan inaan la soo faragelin inaan la soo faragashanin may garatay oo maxay ahayd faraha la isla soo gelin oo siyaasadda la soo dhexgelin maaha dawladda Djibouti waxay xaq ku leedahay inay banaanka nooga baxdo dawladda Djibouti shaqo kuma leh dalka Soomaaliya markee dal waxaan nahay madax banaan oo wadan weyn aan nahay maamulka Djibouti ka jira waa maamul xaafad yar ah nin baa haysta asagaana isku soo caleema saarta asagaana maxay tahay ku tunta asagaana xoog ku haysta asagaana isku caleema saaray asagaana isku magacaabay waxa haysata maxay hayteen Malaysia haysata xoog ku haysata dawlad lama oran karo dawlad waxa la oran karaa dadka maxay shacabka ay madaxda u tahay waa in ay siisaa freedom kooda waa in xorriyadooda siisaa waa in ay doorasho xor iyo xalaal dhigataa waa in ay ogolaataa in lala tartamo taasaa dawlad la yiraahdo dimuqraadi ah waxa weey Kenya way noo soo jawaabtay wali way socotaa wada hadalkeeni Djibouti nooma soo jawaabin marka waxa leeyahay dawladda Djibouti uu hogaaminaya dictatorka Ismaaciil Cumar Geelle xaq miyaa in Roble prime ministerka in ay ku kulmaan wafdi ka socda dalka Djibouti imrada inuu la shiro inuu la fariisto inuu isla soo sawiro annagoo aan ognahay dawladda Djibouti dhibaatada ay noo geysatay annagoo ognahay interfere inay faraha nagu la jirto annagoo ognahay inay xabadaha isugu keen dhiibayso annagoo ognahay inay qarxiska iyo al-shabaabka nagu abuurtay annagoo ognahay baasaboorkii Djibouti inay shacabkii Soomaaliyeed siinayso shacabka iyadoo hogaaminaysa u dhaladkii Djibouti ay sharciga ka qaadayso ay kaniifka ku xirayso ay abuse gareynayso waxa weeye sababta dawladda Djibouti ay annaga interfere noogu tahay maxay tahay sababta uu Roble markii loo kasay maxay hayteen in la yiraahdo doorashadii iyo amniga lagu dhiibay sababta uu la kulmay wafdiga uu maxay ka socda maxay hayteen imrada ay ku wada kulmeen imradu ma meel ilaahay lagu caabudaa mise waa meel siyaasad looga hadlo imradu ma meel ilaahay lagu caabudaa mise waa meel siyaasad looga hadlo dal annaga isku fiicneen oo annagana dhibaataysay oo dhibkeedii aan ka soo waqsan lahay 30 sano oo hadda Soomaali arkeen oo annaga 4.5 nagu dashay oo annaga qabiil isugu keen dirayso oo hubka isugu keen dhiibayso oo interestkeeda uga weynaaday faraha nagu la jirto ayna leedahay waxba ma akhrisaan waxba ma qori taqaanaan asagoo galaaska lixaad aan soo dhaafin Ismaaciil Cumar Geelle on high school ka bixin on jaamacad ka bixin oo master degree haysanin ma garatay haysanin maxay hayteen shahaado haysanin
inuu maantana yiraahdo Soomaali waxba ma akhriso waxna ma qorto siyaasadna ma taqaan waxaan idin weydiinayaa sababta uu Rooble uu kula kulmay nimankan reer Jabuuti ee dawladda Jabuuti kamid ah ee maamulka Ismaaciil Cumar Geelle kamid ah ee ninkan la leeyahay Delayto ee doorashada waa kana Delayto Maxamed oo ah African Unit Election iyo ninka gudoomiyaha baarlamaanka ee Djibouti waa kara Soomaaliyeed khiyaano qaran inuu roob la galay arka inuu ku socdo sheekadii khayre uu ku dhabar ka jabiyay Maxamed Farmaajo asagoo loo doortay doorasho iyo abni inuu isku keeno asaga marka inuu infalfigareeyo maxaq baa arrimaha dibadda shaqo ma ku leeyahay arrimaha dibadda inuu kula dhiilgareeyo nimankan ay isku arkaan cimrada Rooble khiyaano qaran ayuu kar hore waa idinku sheegay Rooble farfarihiisa uma bogin Rooble waa ninkii labaad ee Maxamed Farmaajo dhabar jabinayo dhageysta waa ninkii labaad ee Maxamed Farmaajo dhabar jabinayo waa kana Delayte Maxamed wuxuu ahaan jiray ra'iisul wasaarihii hore ee dawladda Djibouti haddana waxa weeye maxay ahaayeen waxa weeye Africa Unit Election waxa weeye Africa doorashooyinka ka dhaca ninka ansixiya weeye waa kana Delayte waa ninka ansixiya waa ninka madaxweynaha Kongo u ansixiyay doorashadiisii madaxweynihii horeeto ninkii sharciga uga qaaday weeye oo u garab garbiyay weeye ee ninka hadda koonka saaran ee garab siiyay weeye waxaa la yiraahdaa Delayte Maxamed waa ninka Africa Unit waxa xaraan ah nin Africa Unit ku jira ee ansixiya doorashada Africa inuu la kulmo Rooble inuu la sheekaysto Rooble inay iswacaan Rooble inuu iskula soo sawiro Rooble inuu contact la sameesto Rooble waa mamnuuc waa sharciga u yaala adduunka u yaala weeye markuu idin leeyahay Ismaaciil Cumar Geelle wax ma akhrisaan siyaasiyiin ma lihiin wax ma qortaan minis ma taqaanaan Minister Affairs ninka xukuma ninkan hadday noqoto inuu la kulmo waxay ahayd wasiirka arrimaha dibadda inuu la kulmo shaqo kuma leh inuu Rooble la kulmo hadduusan madaxweynihiisa wicin Maxamed Farmaajo uu la dhiilgaraynin uu kula heshiinin inuu la hadlo xaq kuma leh ma garata xaq kuma leh inuu la kulmo marka cimradu meel siyaasad ba mise meel ilaahay lagu caabudo weeye cimradu ma meel siyaasad ba mise waa meel ilaahay lagu caabudo weelay kala sheegaa cimradu ma meel siyaasad ba mise waa meel ilaahay lagu caabudo raggan la shirahayo wafdigan Djibouti xaq ma uu leeyahay inuu asaga la dhilgaro dawlad xurguf naga dhaxayso maamul xurguf naga dhaxayso oo faragelin nagu hayso oo waraaqdii loo diray aan ka soo jawaabin xaq ma uu leeyahay inuu Rooble la shiro xaq ma uu leeyahay Rooble inuu isla soo sawiro xaq ma uu leeyahay Rooble inuu la hadlo waa fraud taas waa fraud waa unofficial waxa weeye marka Rooblow anu waa kuu sheegay anigu warkayga waa soo baxay Rooblow xusul baa ku aasan Rooblow lug baa ku aasan Rooblow waxa weeye Maxamed Farmaajo khiyaano qaran ayaa dawladda Soomaaliya ka gashay
khiyaano qaran ayaa ka gashay arrimaha dibadda total minti maaha ninka African Unit election qaabilsan ee electionka Afrika ka dhaca ee xaqiijiya ee approve gareeya ee yiraahdo wadankaasi fiican electionkiisa u dhacay si fiican bay doorashada u dhacday si fiican buu u dhacay si fiican buu madaxweynaha ugu guuleystay inaad contact la yeelatid because adiga laguma oranin amniga foreign maxayteen forester laguma oran amniga banaanka laguma diray waxaa lagu diray doorashada iyo amnigeeda in aad gacan ku qabatid ma gartay forester abnigeeda laguma dirin roble khiyaano qaran baa samaysay wadadii khayraad ku socotaa haddaad saas tahay maad isu soo sharaxdid maad madaxweyne isku soo sharaxdid maad maxay tahay electionka soo fariisatid maad doorasho soo fariisatid maxaad u qiyaamaynaysaa maxamed farmaajo hadduu noqday waxba yahow maxamed farmaajo hadduu noqday nin meel idinkugu xiran maxamed farmaajo hadduu noqday maxay hayteen nin meel idinkugu xiran oo aad idinka hoggaansataan annagu waa idinla soconnaa siyaasaddana waa naqaanaa dowladnimada micnaheedana waa naqaanaa maxay hayteen dadka kale leh hawshana waa naqaanaa wasaaradda arrimaha dibadda waxaa shaqo ku leh maxamed farmaajo hadday ka soo rogtana waxaa shaqo ku leh wasiirka arrimaha dibadda ma garatay gudoomiyaha baarlamaanka aad la shirtay Jabuuti aad cimrada isugu timaadeen waftiga Jabuuti ka socda waxa weeye wasiirka maxay ninka gudoomiyaha baarlamaanka waxaa xaq ku leh inay isla kulmaan ama wada hadal sameeyaan ninka la leeyahay Maxamed Mursal adiga shaqo ku malihid inaad la kulantid adiga shaqo ma kulid inaad isla soo wartid adiga shaqo ku malihid siyaasadda dalka inaad kala sheekaysatid roble maxamed farmaajo hadduusan waxba arkaynin ninaan meel qafil ku xirateen oo hilibkiisii baslisateen haddaad noqoteen fair maahan waa unfair waxaad samaynaysa roble waa unfair khiyaano qaran baad gashay waa in guddi doorashada loo qoraa daacad ka ah Soomaali daacadda ka ah ee qof walbaba xaqiisa siinaysa abnigana ilaalinaysa waa in loo magacaabaa waa in roble laga wareejiyaa roble khiyaano qaran buu galay roble wuxuu la kulmay meesha la leeyahay cimrada wuxuu la kulmay Africa Unity election ee Djibouti ninka la leeyahay delayed Maxamed ninka qaabilsan Africa Unity electionka ayuu unfair kula kulmay unofficial kula kulmay waxa weeye siyaasadda adduunka waxaraan maqdaca nin qaabilsan ee ku magacaaban doorashada adduunka ama doorashada Afrika inuu ansixiyo xaq ku malihid inaad la shirtid xaq ku malihid inaad isla soo sawirtid xaq ku malihid inaad la sheekaysatid xaq ku malihid inaad aragtaan xaq ku malihid dal annaga naga dhaxaysa xurguf oo la heshiinin oo laga wada hadlin oo faraha nagala bixin oo annaga maamulkeena noo deynin oo xor maamulkeena nooga dhigin oo faragelinta naga bixin xaq ku malihid inaad adiga si gaar ah ula shirtid roble minis waxa weeye waxaad cadaynaysaa maxamed farmaajo inuusan meesha waxba ka ahayn adiga aad madaxweyne dalka ka tahay saa rabtana inaad ka yeelan kartid saa rabtana dalka inaad hogaamin kartid saa rabtana doorashada u samayn kartid waxaan ku leeyahay waa ku fahamsanahay waa kugu daba taaganahay ani lug baa kuu aasan daacad ma tihid khiyaano qaran baad gashay roble maxamed xuseen roble khiyaano qaran baad gashay khiyaano qaran ayaad gashay annaga dowladda Djibouti shaqo naguma lahan annaga interfere siyaasaddeena lugaha kula jirtaa interfere bay nagula jirtaa annaga burburkeena interfere bay nagula jirtaa in annaga cadawgeena la soo safato annaga interfere bay nagula jirtaa annaga siyaasaddeena iyo dowladdeena inay faraha soo gasho annaga interfere bay nagula jirtaa inay qabiil loo kala burburiso qabiilna ay soo dhawaysato qabiilna ay fogeyso حويه حق معها روبل
حق معها الروبلي سومالي وحي كدقي لهذا دلك جبوتي محمد فرماجيه شالايتو أديغو سيدا دلك سومالي إسماعيل عمر قال أياد بين وقلت هنيسي شعبكي كو هيلين هاي النبات إيا نولولنا دبركات كجبسي ما أنت نوع دبركاتكي لبات walaalow waa fashilan tahay walaalow waa fashilan tahay lacagta yaa laga dhamaynin iscasil isaga tag runba ku sheegaya waxaad meesha ka tahay malaha hilibkaagu waa bisil yahay cunid baa la sugayaa isaga tag meesha runba ku sheegayaan runba ku sheegaya Ismaaciil Cumar Geelle ala cashaad timam ka soo baxaysa Ismaaciil Cumar Geelle waa diiday kursiga daarood inuu soo fuulo Ismaaciil Cumar Geelle ninaan hawiyahan kursiga xaraan buu ka yiri dadku ku sheegay maxamed farmaajo Ismaaciil Cumar Geelle go'aan buu ku gaaray Sheekh Shariif inuu keeno go'aan buu ku gaaray Xasan Sheekh inuu keeno go'aan buu ku gaaray qabiilka hawiye kursiga inuu soo saaro ala cashaadtima ka soo baxda ama hoostag ama tuug ama bari ama shacabka Soomaaliyeed lugooy ama kursiga ku waalo Ismaaciil Cumar Geelle kursiga ugu soo noqon maysid lacag iyo qarash baa kaaga baxay waste your time waqtigaaga ku dhimanaysaa maxamed farmaajo hadda intay goorgoorta iscasi هذا أنتي جورجورتها اسأسي هذا أنتي جورجورتها ما الإلكشن كان واحد كسر حليم يسمله وحكوها جاجة هي رمله هذا بيش عالم كوراق الدري هذا بيش عالم كوراق قريب ريبوت كقريب رابله رجال وكل ميت جريء ماشي للي هاي دورش على السوق هيا ماشي للي هاي عمرده إلهي لوجو حصو إلهي لوجو طابت كانوا إلهي لوجو بريو وافتجان غير جبوتي إسماعيل عمر جيل صادر صدي وحويه أماكي أقبتي معايا هتين كالسوني دي روب لصيصي منك موس الصباح وقر باش عالمك جودي برلمانك وين كانان كودي وين أنصحيان دورشة أي أبنية كلا وريجا هذا أنت سميني you waste your time وقت جاعت كعيارسة جت دار يجت قبل وكوفولا هي إسماعيل عمر جيلي أنا سياسة ده إسماعيل عمر جيلي يدولة جيبوتي صومالي فرجلينكم ما يسو معارض كذا ما تسوي ويني معارض كذا وحما رصيني معارض كذا كم هذا صوه بيني لكن أنا معارض كذا كم صوه بيصير أيام تدور أسكرتي صوب بحري أسجع مسؤول كه إسماعيل عمر جيلي مسؤول كها إني أسكرتها صوب بحر إن لو عبسي جليه إن لو هنشبه إن هوبكي أرجع كيسد يا الشباب كل يقول لا لها إن أرجع لو بسوا فراريو لهذا إن أستيبتت إن تنتي لجارب لجافوشده إن لو تنته إن لعكت لجات مستو إن لو خياميه إن لو عايه إن أدون كلو تصيه أيا لو بيجي إسماعيل عمر جيلار كدم بيا نكيس ستورتي مدحوين أوران مايو تو جاي ستورتي إسماعيل عمر جيلار كدم بيا نبات هذا فشل كاجا أسا كدم بيا بربر كاجا أسا كدم بيا بابا أجا أسا كدم بيا إن هذا صون نقولنا أسا كدم بيا because وحويه روبله عبادو آدي روبله وحو آدي إمرو روبله بيتك إلهي يتجي وموتجين إنه الله شيرو وفتي جبوتي كالصعدة إنه يكون كل مان وفتي جبوتي كالصعدة إن أديك اللي جوه شيو إن أديك اللي سأكا أفكشتو إن أديك اللي بابيو إن أديك محيط أنا من اللي سمايو إن أديك اللي دبر شبيو إن أديك اللي فشليو إن أديك العقد أنت لقاعد لما يستمر كي لقاعد لما يستمر بيا النبضي فير ومدعين دور شدان وكشبتي محمد فرماجي فير ومدعين أيا لغو هشيي دكو شيئا أيا كو شيئا يا محمد فرماجي وحان شيئا وصوبحان وكوكو سوعلين هيا بيكتر كان كوكو سوعلين هيا أنو الراب لواسا ودبقالي إسماعيل عمر جيلنا واسا ودبقالي في الذي سان دح فرديا أما نتك هجرو أما هبدلو هجورو
نقرتي أما ندك معايا communication كهاي رأيو أنا وايد الصعدة وحكستنا بنان كان صادق حيا وحكستنا بنان كان صادق يا واحد قرر ماله روب لنا واساء الدبقالي واساء الدبقالي بركي داعد ما روبلي داعد ما روبلي بيتك إلهينا وتحفر إلى روبلي وأنا بالرمضان ما قرتي الله كاسو صار يا محمد فرماتي هدا خيانتي الله كاسو صار هيا كداونا هيا دلتن أيا كوديبتي وكو آمني وكو صحيحي ما دام أدبر جبسي ما دام قف إيا عط أنا جان كويشيني عط أديك إيا قرقار إيا محيتين هبل جود لاوة إيا لفت جران إيا محيتين كويشيسين عط خيانتين عط ميديا صادقتين محمد فرماتي وكو قصبين هاي إنو أقبله محيتين 17 سبتمبر haddana waxaad ku darsatay inaad la miidgaraysid Africa Unit Election Dilayta Maxamed from Djibouti inaad la miidgaraysid iyo baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka ee Djibouti inaad kula miidgaraysid waftigii Djibouti Sacuudiga cimrada inaad kula miidgaraysid minis waxa weeye waxaad wadaa حق درو قيانة قرن أيات كشي شرعي الدوينها قرن وحوية لما ميتقرين كرتنين أفريكا يونت إلكشن unofficial ما لا ميتقرين كرتت ما لا هل كرتت ما وعي كرتت ما يسألك كرتان ما يسسلامي كرتان نقرت بركي دور شدا صوصعته نكا أنسحين يويي نيكا كونك مدحوينها أنسحي وأنسحي مدحوينها كونكو محمد أيان تلو الباب كصوحيرتي نيكا وأنسحي ويي نقرتي وانيكا بانتا وأنسحي يتوغدا وأساقا يزدورتي يا خيانة دا يا most corruption إسماعيل عمر قيلي نيكا وأنسحي ويي the most corruption all the world in Africa وإسماعيل عمر قيلي وإسماعيل عمر قيل نك وأنسحيي وي نك أساق إصدورتي قف أساق لا دكتي أما قف لا ترتمي أما قف لا سو استاغي أي سنجرين نك بنت أفريقيا وأنسحيي وي بنت وشوبي وي بنت يري مركي شنات كل قوي نقرتي marka waxa weeye waxaan ku sheegayaa rooblo fraud baad samays rooblo qayaano qaran baad samays rooblo uma aad tagin cimro inaad ilaahay u toobad keentay siyaasad baad ugu tagtay waad ballan sareeyeen maxamed waad ka dulbooday respect maaha dawladnimada micnaheeda maaha siyaasadnimada micnaheeda maaha نقرتي إناد كتل تلابستي محمد فرماتي إناد كتل تلابستي وسير كارمها الدبدة وحاقابل سن منسترة الأفار يستر وحاقابل سن نيك محيط وزير كارمها الدبدة أيا قابل سن إنه لك كل وفتك الدبدة إنسايد جودة هاد شقق ولا دارك الصومالية دبدة شقق مليهت رابلة دبدة شقق مليهت شقاكو مليهيد شريت ciidamadii soo baxay ee adiga kula haybta ahayd ee mooryaanta ahayd ee argagixisada ahayd ee al-shabaab ka ahayd ee adiga lagu dhiibay inaad maareysid waxay ahayd hadaad sharci taqaanid hadaad taqaanid sharciga militerka taqaanid magar askar dawlad u timid inay burburiso askar sharcigi soo jerisay askar qabiil u soo duushay askar shacab Soomaali burburisay askar hubkii qaranka xaday ee maxay al-shabaabka lagu la dagaali lahaa ma garatay ayaa tiri xeradiina ku noqda hubkiina qaata برينا وحاربتان سمية برينا وحاربتان سمية ماها شرعي ماها شرعي الدوينها ملتركه ماها شرعي قاس ملترك هدو جبيو شرعي قرنك وين شرعي لغو قادا وين شرعي لغو قادا
وين محكمة لصارة وين هوبك لقى جوراه وإن عن حروين كلو علين وإن عن العقد هذا للسنين وإن محكمة لصارة بركي دلك يا دولتي أي خيامين دلك يا دولتي أي خيامين دولة نمذا معنى هذا ما هسا دولة نمذا معنى هذا السامة محمد فرماتنا الرالي بوكاغا نقضي إذا ما دي سود دولي قبيل كسود دولي إن حراوي كلو عليو عسكرتي كلو نظيف كاي قرن كاي وسخيان برينا قبيل كاست مركو كرسيغا سو فولو قبيل كاست سو كوستو هوبكا سو خادو او كسو دولده ووضع فشاد عسكرتي قرن كاي الصوماليين inay wasaqeeyaan qabiil iyo qurun iyo khaainimo iyo maxay qabyaalad iyo wasaqda sheel ku soo duulay inay dhexgeeyaan baa rabtaa inay ku abuuraan baa rabtaa ما قرتي هوبكي حقيقة كانين هوبكي قرنك سوما هوبكي دولة دماهو حقيقة كانين انت هدي لاقيين محي ارقاق حسادة إلا يقل مدو والنظيفين وايين إلا اي حمر إلا يقل مدو محي والنظيفين وايين إلا القبيل وكسو الدولين واي اي تلك الصومالي ارقاق حسادة والنظيفين وايين واي رابلو ها واي مقالة مقدشة او نظيفين وايين واي مقالة مقدشة او نظيفين وايين هدايسن ارقاق حساهين هدايسن الشباب هاين واي او نظيفين وايين مقالة مقدشة واي نبدود اسوء علم وايين هداي هوبكا هايستان هداي قبيل يهين هداي محي هايتين حوقا اللي يهين واي ارقاق حسادة إلا يحمر إلا يقلمودو او نظيفين وايين بحواي وارقاق حسا سلون وارقاق حسا قرصونات وارجع حيصة دلك إبهيسة شالين قرح بعد نعي أيها نسميه قرحاس أيها نقرحاس سميه أيها قرحاس سميه رالي ما نسقتهين شعب كي مقارن مقتشر دي جودي بقى قبنا هيا عسكرتي قبيلة نحردي بقى لقوا عليي هوب كودي نحردي بقى لقوا عليي رجيس معي هيتين عيدا مدي مرايكن كي ودنيين تاي الخوتي دا يو اس سي دا هي موريان تاين اما هاي دلكين يدير waxbay u soo qabteen ama xildhibaanaan waa la sii daayay faraha laga qaaday ma garad ragii dadka soo qaxiyay ragii gabdhaha kufsaday ragii hamtidii guriga dhacay ragii dhulkii dhacay ragii dadka shacabka baabiyay ragii dadka laaliyay ayaa dib intay sharciyo Djibouti ama sharciyo Yurub soo qaateen dib noogu soo noqday anaga نقرت ودنيينتي مرايكنكا دياردي سوريدي عيدمدي مرايكنكا ميدكودي دولكو كجيداي ودنيينتي فرانسيسكا هوتيلكا كلا بخايين هوتيل صحفي marka noocaasad waxa rabtaa marka roob leh in anaga nagu hogaamisid noocaasa waxa rabtaa marka inaad siyaasad nooga dhigtid noocaasa waxa rabtaa inaad maamul noogu qabatid roob leh no bakaadinay روبله فربا كوغو مودن روبله قيانه قرن باد gashay روبله way in laga bedela gudiga iyo amniga doorashada قيانه قرن baa gashay qabiil baad u beertay ninkii aad maxay wada shaqeynta lahayd maxamed farmaajo waa dhabar jabisay wadadii khayraad ku socota meed haduu noqday ana adig kugu dhagan beeshi caalamka iyo duweynaha iyo Mareykanka waa ku gudbinaya inuu qabiilkaaga weynaaday oo qabiil lagu buufiyay oo Ismaaciil Umar Geele rag waftiya kuugu soo diray ee dibadda ka ah ee anagoo maxay tahay heshiis sameeynin anagoo wixii aan isku haysano mugdigii naga galay faragelintii ugu haysa Kenshin Djibouti anagoo maxay hayteen xurgufna dhextaal Djibouti anagoo laba wadan ah oo shaqo isku lahayn ila Djibouti baa yiraahdaa anagana Soomaaliya la yiraahdaa marka waa khalad wax aan walaalnahay ma jirto Ismaaciil Umar Geele walaal ma nihin Djibouti walaal ma nihin laba wadan baan nahay marka waxa aan maanta meesha iiga muuqato awal ba Ismaaciil Umar Geele wuxuu yiri dalkaana gacanta ku haya awal baad u saxiideen shirki arta marka waxa weey inaan xor ahayn Ismaaciil Umar Geele gacanta inuu nagu hayo sidoo raba inuu naga yeesho Soomaali qabiil inuu kala googooyay qabiilka hawiye uu yiri kursiga ayaga giye madaxweynahan maxamed farmaajo inuu qabiil ku ceersanayo nacayb qabiil uu ku ceersanayo qabiilkii in lagu talaalay qabiilkii inaad u beertay ma gartay xaramkii inaad qabiil ula tagtay oo aad maxay siyaasad la dhex fariisatay قيانة قرن بات سميسي روب لقيانة قرن بات سميسي كان هاري ماهي واسان كوتا بقالي
ninkan maydka haddaad aragteen anigu adduunkan kuu sheegahayaa because khiyaano qaran baa samaysay wixii waddankeena ka baxsan oo foori ah may garatay waxaa iskale wasiirka arrimaha dibadda waxaa iskale maxamed farmaajo adiga shaqo kuma lihid Rooble lamana dhiilgarayn kartid lamana xisaabtami kartid lamana hadli kartid siyaasadna kale ma hadli kartid xurgufta Jabuuti dhex taala wada hadalkeeda waa maxamed farmaajo waxa ku soo labeeya wasiirka arrimaha dibadda uma gacan daafi kartid wasiirka arrimaha dibadda daaweey ruulka wadaninimada iyo dawladnimada sida loo kala shaqaysto iyo macnaha dawladnimada ka ku sheegaya waxaweeye xaqiiqdan ka hadlaa anu runtan ka hadlaa qof aan u aabayeela ma jirto maxamed farmaajo waa khaldan yahay maxamed farmaajo asaga maamulkii wareejiyay asaga waxaan waxba ahayn iska soo qaaday asaana dad siyaasadda iyo aqli wanaag aan u keenaynin ee asaga ka liita asaa isku soo xeentaabay oo dadkiisa ku dirahaya oo walaaladii ku dirahaya oo familkii ku dirahaya oo qofkii caawin lahaa ee siyaasad ahaan wax ugu kordhin lahaa ku dirahaya asaa cadow maanta caloosha ugu jira waad fashilantahay maxamed farmaajo waa wuxuu ku yiri Ismaaciil Cumar Geelle ina geella doofaar wuxuu ku yiri tafarre waxuu ku yiri waxna ma akhrisataan Soomaaliyay waxna ma qortaan Soomaaliyay siyaasadna ma taqaanin Soomaaliyay dawladnimana waxba kama taqaanin Soomaaliyay ma garatay waxa weeye adiga weeye aduu ka arkay iyo qashinka isku soo xeentaabtay iyo qashinka isku soo xeentaabtay iyo qashinka oo circle-ka isugu soo xeentaabtay waxa weeye Ismaaciil Cumar Geelle dalkeena ma xukumo dal madax bannaan baan nahay doorashadu waa loo siman yahay qofkii calafkiisa ugu dhacaya iskale qabiilku doona ha noqdo laakiin hal qabiil hawiya iskale hal qabiil abgaal baa iskale Sheekh Shariif baa intuu u dhuunto sun ka soo qaadanaya marna sii dhuumanayo lacag ka soo qaadanaya marna soo dhuumanaya marna khayr u yeeranaya marna qoor buu u yeeranaya marna dani buu u yeeranaya marna wuxuu u yeeranaya maxay hayteen qofku rabo u yeeranaya marna Muuse Biixi buu u yeeranaya no cidu kala shaxaadi kara ma jirto Soomaali waa mir qura Soomaali dal madax bannaan haddaan nahay Ismaaciil Cumar Geelle dalkeena fargelinta nagala baxo dalkeena Soomaaliya fargelinta isku keenday qabyaaladda gacmaha nagala baxo Maraykanka waxaan ka codsanayaa John Biden waxaan ka codsanayaa Ismaaciil Cumar Geelle fargelinta dalka Soomaaliya nagala baxo dalka Soomaaliya dawladeeda iyo maamulkeeda ha u daayo shaqo ku mala Ismaaciil Cumar Geelle dooratay male asaga is doortay dalka xoog asaa ku haysta Jabuuti shacabkii wadaniga ahaa Jabuuti ahaa sharcigood intuu ka qaatay Soomaali sharciga Jabuuti siinaya magar fanaaniintii Jabuuti intuu baahi ku diilay dadkii u dhaladka Jabuuti ayuu wuxuu siinayaa Soomaali fanaaniinteedu 1 milyan guryo dajinaya sharci siinaya lacag siinaya shacabkii u dhaladkii Jabuutina wuu ku tumanaya نقرت مركا أننا ودرت كي جبوتي وجهي أي كوايين أننا إسماعيل عمر Geelle كما هلينو of interest جيسايو فرسنا يا مركا وحلا جون بايدن وحوي شريته عيدا كاجي ودني جاها إن الرير كان هوية لولك كتيران وديارتك السور هدان وميت كودي لولك كتيران وحمسول كإسماعيل عمر Geelle اللي جوجو بهدي لأديجا سبب تعود دوية ونفر جشنيا وحمان أديجا وكوكب جون بايدن وحمان أديجا وكوكب ويجي وحبك أصينيا إن بريل ولا تجعلم أدي إن باش عالم كل ولا تجعلم إن النقطان إن بوحكمة شيران دلك الصومالية وعلى واحد كل هذا الشان إنه لقطة مريو وأساق إيطالية أيو ربع إسماعيل عمر Geelle إسماعيل عمر Geelle دلك إنه وإنه لوجا قبتها فرجلين تدلك إنه كهيا وإنه نقلبها إسماعيل عمر Geelle الدورة ملا أساق عيستورتي إسماعيل عمر Geelle قبل الواد لليه هو يوم الرايتس كوشقيسا معي هيتن دلك الصومالية كالصعوطة وحاخلها جوريجيس إنه يكشوا
وشقده إني سكسوا بحين بركة human rights كيوت كأيي قابل سنتهاي وحامنوع إسماعيل عمر قال لجوري يفهم الكيس إنه دحقشوا وإن شقده اللود دري جبوتي human rights كعيال كريها لقلب حيو حاسكي سقط رحيت حيرة كوها يسطو قبلها مقالة مقطشة لقو كفسنا هايو garowe iyo Puntland gabdhaha lagu kufsanaya meel kasta Soomaali ku dhibaataysan human rights-ka waa inay xabsiga Djibouti ka shaa waa in dadka xuquuqul insaanka u shaqaysa uma shaqayso Ismaaciil Cumar Geelle familkiisa uma shaqayso Ismaaciil Cumar Geelle familkiisa ilwaad gabadha wadata ee Ismaaciil Cumar Geelle gurigiisa dhex fadhida iyo familkiisa waxay u soo shaqo tagtay ee Canadianka waxay u soo shaqo tagtay inay wax u qabato dadka dhibaataysan asa human rights ahaan ha looguma soo dir Ismaaciil Cumar Geelle gurigiisa inay fariisato no familkiisa inay ka mid noqoto looma soo dir watara fiirsada looma soo dirin wata Ismaaciil Cumar Geelle gurigiisa familkiisa dhex fadhiya wata وشقدي الله صادري هو من رايت بكا واسماعيل عمر جالس جبدي سويه قبول كايي ويهوا ويهي وتا ماشي فريده وتا جبدي سويه وتا كندي اويه هو من رايت كيوت كشقيسا نو انفولف ان يكون نقطه اسماعيل عمر جالس جورجيس نو she's not allowed in يقول اسماعيل عمر جالس فريسته وخات وتا ماشي فريد وخلط وكنديان هيوم رايت كيوت كاي وشقيسا صوماليا افريكا معها غوريغا اسماعيل عمر جيله اني وتا عطيني يا ماتا انا كو عاقبتي وخلط inay u fariisato waa khalad inay gurigiisa u fariisiyo waa khalad inuu tibsiyo waa khalad inuu yiraahdo aniga hay baarin gurigayga gabdhahayga iyo carruurteyda ka mid noqo ilwaaday waa khalad markay gabar Soomaaliyeed weeye Canadian weeye shaqadeedu waxay tahay human rights oo youth-ka weeye shaqaday u soo baxday waa inay fulisaa saas waayo qof kastaba laaluushu siyaa gurigiisu dhex fariistaa Ismaaciil Cumar Geelle annaga walaal kula manihin laba dal baan nahay haddaan xushmeen weydo annaga beesha caalamka kaaga dacwoonayna adduweynaha kaaga dacwoonayna maxamed farmaajo haddaad dilootay oo meyd ka dhigatay oo hilibkiisa aad bislaysatay oo cunid aad u sugaysid anaa kugu dacweynaya adiga khaa'innimadii faragelinta aad dalkeena Soomaaliyeed ku haysatid iyo wasiirka arrimaha dibadda shaqadiisii aad faragashanaysid waa kugu dacweynaynaa أنا واحد يسمنيهم لما دلبانهاي because وحويه جبوتي عدوين وحويه كينيا عدوين ويه واي أقولاتي إن هالشينو واي أقولاتي فرجلينتي إن عندنا قلب بعضه سببت أي جبوتي وديتي محيتهاي جبوتي يا كينيا ونوسي منهم جبوتي وادرس كينيا وادرس وينوسي منهم أنا ولال منهم جبوتي لبا علم بانك لهايسنا لبا ودن بانك لهايسنا أنا كدول وين أنا كباحد وين أنا محيتين دلكنا يددكنا أنا مدح بنان مركز سببته كينيا لو فوقيناyo cadow looga dhigahay Djibouti loo soo dhaweysanayo cadowgeena ee doorashadeeni iyo maamulkeeni iyo dawladda Soomaaliya ay u faragashanayso ay Kenya ka soo jawaabayso ayaduna ay diidan tahay Prime Ministerkiina loogu tagayo maxay hayteen ee loogu tagayo meeshii la cimrada loogu tagayo waftigiina u bixinayo miinis waxa weeye maxamed farmaajo waxba ma tihid weeye kuma itiraafsani weeye dalka waxa ka tahay weeye ma jirto waa ku sheegaya maxamed farmaajo dalka waxa ka tahay ma jirto weeye dalka waxa xukuma Rooble dhayso shalayna khayr ra xukumay maantana Rooble ku xukuma walaalo bariya is-asil dalka kuma soo noqonaysa is-asil كهوية هاد إنتي غور تهاي هاد إنتي غور تهاي بيش عالم كوراق وقر حق ماهن رابلة إنه لم يتقرأيه
ما قرتي محيت أفريكا يونيتي إلكشن محيت دليتا محمد جيبوتيا كعيس عن فردكا إنه لكل معهن دورشدي أن أسجع وديبي إيه محيت أبني وديبي وأن كلام نقضي وإن قد كلا الله سمية وإن بيش عالم كقدرته وإن قدوميها بارلمانك وشيكته وإن حل دبانة ذا وشيكته وإن الوراق ذا قد بساه وإن قد بساه بعد أقولاتي دورشدي إلا قبته واد أقولاتي دورشدي سبتمبر 17 كده واد أقولاتي أن شروطه إن لغو محيتين لغو قالوا وحوية روبلة وإسفشلية خائن ونقضي خائن ودن بو نقضي ما يقرتي وحوية روبلة ما نقون كرو نندح دحادة روبلة دورشدة ما معمولي كرو روبلة أبنيك دورشدة ما معمولي كرو هل تكون شيء هي ما معمولي كرو روبلة خائن ودن واي روبلة خائن ودن واي كايلي ما يروبلة واني وحان كوغو أركان كوغو قبان هيا وحبت تصبح هوداني ما قرتي عمرادنا نما كانت كل بلانسن إلى سقوط مادان هوستان إسكال حريريسين إسماعيل عمر قالنا هوستان إسكال حريريسين إن أدخل يعني تد محامة فرماتي مركب ميد هدا أركتي أنا كايلي ما يميد نكبيت كان أركتي كايلي ما يميد هدا أركتي وحتى يبناك كصوري يعني حقيق بان لسه هرفريسن شعب كصوماليين حقيق بان لسه هرفريسن هيا maxay taqaladadka aad ku jirtid shacabkayga inaan la qaybsado markii meel aan boos kaaga banaanayn ayaad faragashatay eegart awenu yir Ismaaciil Umar geel meelahaas iska yaacayaan siyaasadna ma yaqaan waa yaacayaan gacantayda ku jiraan waa yaacayaan Ismaaciil Umar geel cidna ka yeelmayso Soomaali qabiil bad isugu dishay Somali قبيل بتكو بابيسي Somali 4.5 باكنتي Somali waxaa tir qabiil yiraahdo hawiye un baa hogaami kara ma garta daarood ma geeyo kursiga nacayb aad mareexaan la nacab tahay ayaad la googo'aysaa waa dilqaysa ma garta reerkan Puntland raga maamulka Puntland ku haysan waxay ka ogolaadeen kabaqaad inay noqdaan prime minister bay ku qanacsan yihiin prime minister bay ku qanacsan yihiin hankooda ma taagna inay madaxweyne noqdaan dalka hogaamiya hankooda ma taagna inay madaxweyne noqdaan inay dalka hogaamiyaan hankooda ma taagna ma garad daaroodka kala cunaysaa mareexaankii baad cunaysaa ma garad waa kula socdaa magaalada Djibouti dalka Djibouti dadka soo qaxay shacabka Soomaali kugu soo qaxay inaad qabiil u kala saartid in mareexaankii oo qabiiladii hawiye sheegto waa ku ogahay qabiilista la fahay ka googo'ayna tahay bini'aadnimo ina ka baxday waa ku ogahay aniga kula hadlahay aniga sharcigayga regular yahay aniga Djibouti la igu dhibaateeyay adiga iyo rag kula shaqeeya regime kula shaqeeya nacaybka la googooday siyaad barre ma gartay isku tirkii maxay Ethiopia iyo Soomaaliya 77 adeerka ka dambeeyay walaalka Idrisna adaa dilay إدريس عمر قولت أدا دلي إدريس عمر قال أدا دلي أدارك حسن قولت أديك أدلي حاسكي سي أديك أدلي سارع على إلا الدلي أدا حس الشيخ أدري حل دبان نادي حس الشيخ وكدلي حمر أدا مسؤول كاها على خليف أدا دلي أدا كدب بيوسون تسيي ما قرت أوكي أدا كدب بيوسون تسيي نقرت مركب وحوي كايلي مينو إن أولي فرح نقول جرتي أو إمرادي نوقت تبتجيست إمرادي نوقت تبتجيست سياسة هان كام يلين أنك أدر دلك وحولي هاي وزير كارمها دبدو ليا دبد هذا تدرسني سوفتي أدر دلك دل نبه هجام يا محمد فرماتش اللي يراهدو نلي يراهد محمد فرماتش دلك هجامية كما دول بودي كرتيت أسقطوا كايل إن كدول بودي وكوكو أنسحية دورشة هذه عايز دورتي أنا كايل مايو waraaqdi lagu soo diray wayna ka soo jawaabtaa faragelinta Soomaaliya ku haysid wayna yes iyo no ka soo jawaabtaa
faragelinta Soomaali ah ku haysid ee Kenya ka soo jawaabtay ee adigana dhagaha ka xirato ka furaysatay adeer ka soo jawaab Ismaaciil Doofaaro ha Ismaaciil Cumar Geelow kaligistaliyo tiktitoro ya ina dafaro ka soo jawaab waraaqdii lagu soo diray walaal aan nahay ma jirto annaga Soomaaliya la yiraahdaa maamulka Soomaaliya ka dhaxaysa hawiye iyo daarood iyo isaaq iyo digir iyo marif iyo jareer iyo kulli annaga wada walaalaha calanka naga wada dhaxeeya annaga ku wada heshiinayna maamulkeena dalkeena ku wada heshiinayna laakiin ka yeeli maayo hawiya dalka geeya kursiga soo saaraya nin kale ma geeyo ka yeeli maayo abgaal baa geeya kursigiina saara ka yeeli maayo maraykanka wadanigoodii baan dhul ku jiidaynaa meydkoodii raggii diyaaradaha soo tuuray baan baasaboor siinahayaa Jabuutiyana ama baasaboor dibadaha kasoo qaday maraykan baan u qarinayaa kaa yeeli maayo anaa u sheegaya maraykanka Biden anaa u sheegaya dowladda maraykan anaa u sheegaya international community western anaa u sheegaya raggii mooryaantahay ee dalka burburiyay ee xoolaha dhacay ee shacabka baabiyay weeye ragga ciidanka keensaday uu roob la ku xirtay oo familkiisa qabiilkiisa roob la qabiilkiisa nagu sheegaya ay diid wiilku adeerku yahay weeye roob abdi qaydiid weyni ka shacabka baabiinayay hoobiyaha marin hayay adeerka yeeli maayani ina maraykan u qaristo international community oo annaga nagu xamatid oo adduunka iyo Afrika nagu dirtid ka yeeli maayo أنا رئيس تميه أفريقيا وأفريقيا درس بانو نهاي أنا أفريقيان بان هاي ما قرت ويلك قبضنا هذا قبو أفريقياس كأه دراك ديلر كأه باسبور كفرنسيسكا وتا مرت اللوزر كأه ناكتك الفرنسيسكا كو قبو ما قرت أنا واسقا كسور جيداي أفريقيا من نبعي رئيس تنمي وأنا قاعدين أفريقيا تري إن فرماج معهم فرماج ولاش رئيس أفريقيا نعبتها من نبعي أفريقيا أفريقيان بانهاي ها والنبعهاي نيكا قبضنا هذا قبض وشعبكي ودنيين ترير جبوتي ودلتك جبوتي حقودي عن شورتو داسيني سوى كسور جيدا لوسر كدراك ديلركا دراك قاسلي بستان وكسور جيداني تومي وكواقع داي رسيستوي ايه أفريقيا نعبتها هاي إنا فرماجوي محمد فرماجوي لاش نو أفريقيا من نبعي أفريقيان بانهاي تشاتشوس فقول تشاتشوس إن شاء الله بسم الله كريم ونكا أرنقاتشين هيا إلهي ونكا أرنقاتشين هيا هدان نقول غير صومالي هدان نقول الشعب غير جبوتي ودلت كاي دلك جبوتي إلهي ونكا أرنقاتشين هيا بركي هذا استورتي عدكو دورتي ملا إسماعيل مرقيلو عدكو دورتي ملا هذا استورتي هذا أنا واحد هاي بيزنس مان بات هاي هذا أنا دلكي صوماليا بربرية هذا أنا عداوها نو سميي هذا إثيوبيا عداو نوغا ديغاي هذا كينيا اسكو كينترهايا هذا أفريكان كلا اسكو كينترهايا هذا يو إن كنغو ديرهايا هذا انترناشونال كوميونتي كنغو ديرهايا هذا قراميدا ميدو نغو ديرهايا هذا أدون كنغو ديرهايا واكو اوغاهاي تشاتشوس إنا تاي واكو اوغاهاي تب إنا بيس واكو اوغاهاي إلهي وناكا هرقاتشنايا إلهي غير جبوتوي waxaan leeyahay oo dhaladka reer Jabuutina maanta Ismaaciil Cumar Geele baasaboorradii dukumiintigii inuu in kala wareego nimankii wax bartay ma garatay oo sharciyadeedii ka gurubsado reer Soomaaliya inuu sharciyada siiyo baasaboorradii Jabuuti argagixisadii iyo nimankii hawiye uu ku taxo ya ama uu dani siiyo ma garatay ama uu siiyo Muuse Biixi ya oo idinka sharciyadiini dhulka uu geliyo oo idinka urursado oo sidii islaafka idin gumaysto idinka isugu wacan idinka iska dul dhaqaajin waaye idinka iska saari waaye idinka meel uga soo jeesan waaye idinka iska dul dhaqaajin weeyde taridii sheegayaan oo waxa idinka isku samayseen markaas media isku dhagantiin habriin islaamiyiin nicaayaysa
انت إنا دفر إسماعيل إنا دفر إسماعيل مرجال إنا دفر إسكعيل الهيدين وركيني تورشر كوسمين هايو أو حبسية لو قولي بعتين هايو وين هو يوم الرايت إسكتت كشقاية وين حبسية قشان إلا يتشولاي وعن مقلي حبسية ويدين ديتي يا إنا قشان إنا بارتان دتك تورشر كوسمين إسماعيل مرجال dadka torturka uu ku sameeyay xabsiyada ku jiro sharciyada ka qaadayo waa inaad u dhaadhacdaan xabsiga maxay tahay gabood waa inaad gashaan Ismaaciil Margeelle asaga is doortay waa inaad shacabkan xoolaha uu ka dhigtay uu guriga ku xaraystay uu ku tumanahayo waa inaad ka qabataan hubkan oo annaga nagu soo daad gureynayo isku keentirayna waa inaad naga qabataan waa inaad fiiro gaar u yeelataan Biden waa inaad fiiro gaar u yeelataan وبلن قاطي وحوها دورشدادي human rights kaaga inaad adkaysid dalalka dhibaatada lagu hayo inaad baaritaan u dirtid asab bini aadan ahaan doorashadaadii wixii aad ku dhawaaqdo ahaa waa inaad ka saad dawladda Djibouti waa inaad Ismaaciil Umar Geelle gashaa waa inaad xabsiga gabood gashaa waa in sharciyada Djibouti ka cancel garaysaa nin kastoo Soomaaliya oo wata dibadaha taad ku aragtaan waa inaad istilaab ka saartaan ragga sharciyada uu ka ururiyo dharadka Djibouti waa sharciga uga qaadaan sharciyadu ka urursaday wiilka leeyahay qadar hebel ee sharciga uu ka qaatay waa in sharciyadoodii baasaboorkooda loo soo celiyaa waa in fanaaniinta Djibouti xaqooda uu siiyaa ilaa fanaaniintii reer Soomaaliya hal milyan guri ugu iibiyay lacagna ku siiyaa degan Djibouti marba magaciisa inaad soo hadal qaad oo reer Soomaaliya fanaaniintii reer Djiboutina xarkay cunhayaan gaaji u baqtinayaan waa waxaad isku keenteen reer Djibouti laakiin annaga nadaaya annaga ninka waa inuu nadaaya ha idinka idin baqti dil haduu rabe annaga ha nadaayo Ismaaciil Umar Geelle iyo rajiimkiisa imradii baan ba uga baxsan weynay ha nadaayo ha doorashadeeni baa qilqil ku jirta doorashadeeni buu isku keendiray ciidamuu ku soo kiciyay ciidamaa dhufay samaystay mooryaantii buu soo kiciyay hub buu soo siiyey hubkii baa laga xaday xerooyinkii nimankii hubka xaday baa weli xerooyinkii fadhiyo ka shaqaynaya fikrad waad maxamed farmaajo waad fashilantay walaalow isaga tag waji iimaysid wajigaa gubay isaga tag meesha wad ceebowday dharkii baa ka dhacay dhiiqa dhex fadhiday isaga tag isaga asil wax aad keenaysid male wallahi hada soo noqonino billahi hada soo noqonino la soo noqonin hada kaygu waa soo baxay soo noqon maysa lacagta laga dhamaysanaya isaga tag ninka soo dhaweysatayna waa ninka hadda cimrada kugu dhabar jabinayo waa roob la ninka ku dhabar jabinayo ee waftiga u soo dirsaday Ismaaciil Umar Geelle ninka ansixinay African Unit Election dileet Maxamed iyo midkii la dhahay gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti ya waftiga ugu soo dirsaday cimrada inay ku kulmaan oo lagu shiro adiga lagu heshiiyo waxa weeye waa fashilantahay isaga tag waxa leeyahay baarlamaanka shacabka Soomaaliyeed waxa leeyahay dadka baarlamaanka ku jira Soomaalida baarlamaanka ku jirta xildhibaanada waxaan idin leeyahay anigu arrin xanaay soo gaartay tibtaana waa idin siinahayaa been idin ma sheegahayo arrintaana waa for sure waaye haddaad nin wadani ah oo birita la shaqaysan kartaan oo birid nabadgelyo idin siin karo iidan dooranin been idin ma sheegahayo waa nila ugu harsanahayaa reerkan mooryaanta haddaad soo ceshataan Sheekh Shariif waa nila ugu harsanayaa xabad baa nila ugu harsanahayaa kulli waad qorantihiin waa taladaas idin siiyay uu kow ka yahay ninka la leeyahay mursal kow uu ka yahay mursal waa tirkoobantiin Ismaaciil Umar Geelle waa tirkoobantiin iyo rajiimka Ismaaciil Umar Geelle uu wato oo Sheekh Shariif kow ka yahay iyo groupkan mooryaanta ah ee USC da uu wato Ismaaciil Umar Geelle waa tirkoobantiin waa nila ugaarsanaya ama wasiir ha noqdo ama maamulka maxamed farmaajo ha noqdo ama askar ha noqoto ama qabiil la beegsanay ha noqdo waa la ugaarsanaya waa in aad ka tabaabushaysatan
dadka xildhibaanadan baasaboorada dibadda haysanin oo meelay u cararaan haysanin ee raba biri inay sii fadhiistaan biri waan idin ugaarsanaya haddaba usha gacantay idinkugu jirtaaye nin watani ah oo aad rabtaan ood biri ku badbaadaysaan doorta Rooble waa khaa'in wadani wey Rooble khaa'in wadani wey Mooryaan wey Rooble ربع دي شيء لما آمن ما قالوا إلهي لما يقانوا آمن ما قالوا الرابلة هذا دي شيء إنا كنت يا وابك على كتير ماشي كل أستاذ برناكو كين هيا رابلو ماشي كل أستاذ برناكو كين هيا ما وحام كمودي مسوا على نقن دوري وحام كمودي لأن مسكين أو الدنيا أو ضدك أو دحية أو صومال أو دحية أو عدوك ينعبك أو دلالك عدوك إنه فرجلين تنويس أو يقان الدولة لماذا معنى هذا أو يقان قفل بكرسي وليها إن أنا لو حد قطبين قفل بمامل كليها لو حد قطبين الدولة لماذا معنى هذا يقان أو يقان إنك كاسر ريا iyo ninka ka hooseeya waxaad kala mudantihiin iyo qof walba shaqada uu leeyahay oo lagu ixtiraamo lagu xushmeeyo waxa way maadaama xadkaagi aad dhaaftay maadaama xadkaagi aad gudubtay maadaama aad sharcigi ka talaabsatay maadaama aad keentay qayaano qaran aad keentay maadaama hawl aan lagu dirsan dibadda aad gashay because wafdigaan lagu soo diray Djibouti waa dibadda maaha inside gudaha dalka Soomaaliya dibadda waxaa kule wasiirka arrimaha dibadda waxaa kule maxamed farmaajo inuu la dhil gareeyo maadaama aan ka dacwoonay maadaama xataa waxaa beenisay wasiirkii dubadaha warfaafintaha oo ayaantii dhaweed ka hadlay damajka ee Djibouti noo geysatay ayaad asaga naftirkiisa fashilisay inuusan waxba ahayn inuusan Ismaaciil Cumar Geeliye Djibouti maamulka Djibouti inaysan wax nagu sameeynin adweynaha tustay inaana waxba na dhex oolin waana dhex yaala faragelin buu nagu hayaa maxay dawladda dariskeenu nooga hiiliyay dawlaan buu nagu yahay annagu isku keen dirahayaa annagu hubka isku keen dhiibahayaa annagu lacag isku keen siinahayaa annagu isku keen baabi'inahayaa annagu isku keen cuskanahayaa annagu na dhibaateynahayaa markaas adigana la shirtay تاوي خيانة قرنك أسميسي ها دل عدوغينا درسكينا إنا الله شرط أما الله فريست ماهن أيضا كر محيط مدحوينا دلك هجامية يا وزير كارمها الدبدة يا وراقه اللي دري Djibouti أيس صوص صحيحين إن يفرقلين تنقب حين يسو وحي هاي إن هذا الله هلين وحي هاي إن هذا الله هلين وحي ده هاي إن هذا مقلين وحي هاي إن هذا اسكو صورين وحي هاي إن هذا لم يتقرينين روبل قيانة قرن بعد كشي ما قرتي وحوي دورشة داعات كمتهيد دورشة داعات كمتهيد مال بعد وشنجرتا وحوي وإن جدي أو حق دورشة سيو هذا وين لكينا وإن لجاوريتشي عادي بركي فرود بعد سميسي وإن لجاوريتشي فرود بعد سميسي ها فرود بعد سميسي illegal بعد سميسي إناد وفدي Djibouti كالصعدة كلمتي عمرده ودولك لغو إلهي لغو عابدو ما دول سياسات ما عمرده وماشي إلهي لغو عابدو سياسة دونا محيطين another case كاليتوا وحوية روبلة خاين ودن باتهاي روبلة إدكو آمين يستمر ها وحلا يا النبات يا نورنا dadkii naafutada ruuxa ayana siyaasadda waxba ka aqoonina Rooble qayaano qaran buu galay Rooble waana ku soo celinaya waa in adduweynaha qaramada gudooba meesha ka daawadaan anu xaqaan u hadlaa qofna uma heeliyo isug وكا سمارك سومالية حقا وهضلاني وحي جيران كهضلا قفكي ديدنا يوتالا قفكي قبيلي وعيسى يوتالا قفكي عيتما يوتالا حقيقة كهضلا وكا اسماعيل مرقيلو واساقو طبقالي متحتويا هذا كو جيران
madaxtooyadan ku jira Ismaaciil Umar Geelo waxba igama qarsoonaan waxba igama qarsooma waka adigii baa ku yimid laab adigii baa isdoortay adigii baa tuugnimo isku caleema saaraya adigii baa isdoortay adigii baa afduub ku haysta shacab reer Jabuuti masaakiimiin oo dhaladka reer Jabuuti markaasaa waxaa rabtaa annaga miyaa doorashadeena inaad soo faragashatid doorashadeena inaad xagga ka maamushid doorashadeena inaad hub ku keentid tirada askartiina ku hubooba ku dagaalama ninkaan meesha ka soo saaray Maxamed Farmaajo no Maxamed Farmaajo waa Mareykan criminal maaha dagaal sokeey kama qayb gelin qabiil baad ku ceersanaysaa Ismaaciil Umar Geele qabiil bay ku ceersanayeen mooryaantan waxa weeye asaga haduusan aqoon kursiga ku fadhiya micnaheedu tahay haduusan aqoonin siyaasad iyo dawladnimo haduusan aqoonin qashin haduu isku soo xeyndaabiyay dad asaga lugoynay haduu isku soo xeyndaabiyay cadawgiisii gacalkiisii kala aqoonin shaqada u fadhiyay kursigu fadhiyay haduusan garanaynin waxa weeye aniga waa inaan banaanka kula soo baxaa adduunka waa inaan kuu sheegaa kuguna ifiyaa Mareykanka iyo dawladaha westernka iyo dawladaha galbeedka inaa been u sheegayso been ku nooshahay iyo xaqiiq iyo isdabamarin iyo qaa'inimo iyo rufyaannimo inaa ku nooshahay waa inaan adduunka kuu sheegaa annaga doorasho xor iyo xalaal u baahan annaga doorasho dadban baa nagelisay doorasho dadban oo baahannahay doorasho dadban oo waxaa nagelisay oo maxay hayteen oo aan xalaal ahayn laakiin waxaan rabnaa si Soomaali ku degto nabad ku timaado in lagu kala baxo guddiga loo sarmeynayo maxay hayteen doorashada guddiga sameynayo maxay hayteen nabad inay maxay hayteen si nabad xaq soor inay noqdaan baarna qofkii uu ku dhaco waxa weeye dalka inuu hogaamiyo waay si aan u gaarno qof iyo cod laakiin adiga in foolfi farahaaga waa tira badiya Ismaaciil Umar Geelo waa nagu dhex jirtaa baasaboorada raggaasiisana waa la gansal gareynayaa adduunka caalamka oo dhan waxaan leeyahay baasaboorada Jabuuti qof kasta aad ku aragtaan eerabooradiina ee Soomaali ah ka gansal gareeya because maaha Jabuutiyan waa Soomaali هرمود وارجعيسو موست العكتيس هرمود ويا دتك لينيسو العكت وسو ديبيو موريانتا إن لغو لايو شعبك الصومالي لغو قحيو هرمود وارجعيسو دلك وين لغا قبطاه جون بايدن أو دلك وين كقبطاه هرمود وأساقا إسكالا إسماعيل عمر جيلا إسكالا دلك وين نوغا قبطاه أساقا العكتا ديكتاي أساقا مامولا أساقا العكتا موريانتا حمر كسية أسكرت الدقالميس أساقا أصدر العكتا أساقا كوني باتايا صومالي إن إيسا نبات كدالارين إنو ساقا عمتا وقوهايو وحان الله هاي دولة مريكان كو دلك وين نوغا قبطاه إسماعيل عمر جيلا هبين كحالة كتغينا كهار إسماعيل عمر جيلو إسماعيل عمر جيلو وهبين كحالة كتغينا كهار فرور كدلكا كجرتي خطرت أد كجرتي جيسك أفريكا إثيوبيا يا إريتريا دبعتها أد اسكو هيس دورتينا اسكو ترتي إثيوبيا TP ألف كأديك إنا كدم بيس دبعتها إيسي عنفر يا صومالي كالبيت أدا اسكو درو هبك اسكو ديبي صومالي يا كينيا أدا اسكو ديري ما يقرب أيانتي دويت كونك بركو محمد تجينا إن كونك سر رقيسة محمد فرماتي وسود دوي أذا كدم بيه أو وعي مدحوينها كونكو ما يقربتي أذا وعي مدحوينها كونكو يركو كتشيد نكان كويمت أديك أقول هذا إن كوب هدي هذا يري بهدي محمد فرماتي كاس مدحوينها كونكو وحصل صار أو أنسي دور شديسي مدحويني هورا تكتور كرسية نكان اللي يدليدو محمد دليد محمد نيكا محي أفريكا يونت إلكشن كاوية نيكا كرسيكا ساري مدحوينها كونكو كاوية نيكا أنسيحية دورشة أفريكا كنعدا ما قلتي صحيح إنها تهوان أوغاهي إنها فافر أسميسان وأوغاهي مدحويني هورا كونكو إنها كقاتلان كرسيكا وأوغاهي إنو نيكا دليد محمد وكسميي إنو يرأدون كاكو عمبارينينا maxay tahay cunaqabateen baa kugu noqonaynaa doorashada hadaad sii dayno ninkan ku wareejin waa ogahay yani waxay ka dhaxayaan ogaa madaxweynaha koonko kaasa annaga noo soo diray miya dilaydo inuu la kulmo rooble dilaydo mamnuuc waa aduweynaha waa mamnuuc nin African Unity Election
asaga ictiraafa qaabila waa mamnuuc dalalka afrikaanka inuu maxayteen ama uu la kulmo ama ay iswacaan ama isla soo sawiraan ama ay sheekaystaan waa mamnuuc waa sharciga adduunka u xil saaran waay waa sharciga adduunka u qoran waay tasaa ku sheegayaa ha marka waa idinka sii tegaya khayr baa idinkaga tegay guuliyo goobnimo baa idinkaga tegay videogaana waxaa iska leh madaxweynaha Biden baan u dirahayaa Ismaaciil Cumar Geelle dalka waynu nooga qabtaa shacabka reer Jabuutina waa in lagu ogaadaa xabsiga waa in dadka xuquuqul insaanka human rightska waa inay kala xabsiga gabood gabadhan ilwaad la leeyahayna ilwaad gabadha la leeyahay Canada ka tagtayna ayadan human rightska youth u shaqaysan waxa leeyahay walaalay shaqada ku jirtay shaqadii lagu dirsaday ma shaqada lagu diray waxa weeye human rightska xabsiyada inaa gashid dhibaatada shacabka reer Jabuuti ku sameeyay Ismaaciil Cumar Geelle inaa soo report garaysid gabdhaha la kufsanaya magaalada Muqdisho ama Puntland ama Kalkacyo ama meel kasta noqoto waa inaa reportkeeda shaqada qabsataa lagu ma dirin guriga Ismaaciil Cumar Geelle inaa gashid familka Ismaaciil Cumar Geelle inaa ka mid noqotid shaqadaada waa inaa qabsataa hadaada shaqadaada qabsanayna waa fraud waa in laga bedelaa waa in qof kale kursigaaga la soo fariisiyaa qof kale way kursigaaga lagu soo bedelaa because waan ogahay adiga iyo waxa ilma adeer tihiin Xasan Aadan Samatar fanaanka 1 milyan guriga looga iibiyay Jabuuti ina ilma adeertii waa ogahay ina deel qaaf midka ee batroolka isla iibsadaan Ismaaciil Cumar Geelle ee markabka batroolka Jabuuti la keeno ee xamar laga iibsado ee imaaraadka annaga giftiga nagu siiyo inuu adeer ku yahay ina deel qaaf waan ogahay qabiilahaan inuu kugu soo dhaweynayo hawiyahan waa ogahay ma garatay waxa weey waa kula socdaa marka famil iyo shaqo meel ma wada galo inaad dhex gashid Ismaaciil Cumar Geelle familkiisa inaad ka mid noqotid oo shaqadaada ku luus garaysid ya ma ahan meel ma wada gasho ama shaqadaada qabso ama iska wareeji qof kale lagu bedelayaa ha ana ku sheegaya ha waxa la yiraahdaa ilwaad waxa la yiraahdaa ilwaad الواد المس ها الواد المن ها الواد المن gabadha Kanadiyaanka ee guriga Ismaaciil Cumar Geelle ku jirta ee familka Ismaaciil Cumar Geelle ku jirta ee guriga Ismaaciil Cumar Geelle fadhida ilwaad elman ee Kanadiyaanka walaalay shaqadaada qabsadaada qabsan kari wareeji kursiga ha waan idinka sii tagay khayr baa idinkaga tagay guuliyo goobnimo baa idinkaga tagay Soomaaliya ogaada Roble qayaano qaran u galay Roble qayaano qaran buu galay Roble qayaano qaran buu galay hal ogaado aday ku taala Maxamed Farmaajo ma soo noqonaysid intaad khayr ninka la leeyahay Roble intaad aamintay maantana uu ku daba maray kursiga ku soo noqonaysid lacagta yaa lagaaga dhamaysan lacagta yaa lagaaga furan lacagtu waa qaadasho qofkii la rabana waa la keensanayaa wayna isla mid gareeyeen ninkii u ansixin lahaa doorashada ninkii qaadan lahaa ee Jabuuti fadhiya aan fartaahayd dilayda Maxamed ninka Africa Unity electionka ma garatay ee maxay hayteen ee maanta ay Roble is arkeen ay mid gareeyeen oo doorashadii laga hadlay Soomaaliya oo arrimihii adiga sida lagu tuuraa laga hadlay sida lagu fashilin laga hadlay sida kursiga laga qaadin laga hadlay sida adiga lagu dhabarjin laga hadlay adiga lagu heshiiyay aday ku taala ana waxaan ka hadlay way ka hadlii waxa sheegana way sheegayiin waxa ma qarsooma runtaan idin sheegayaan aday ku taala ana waxa qoor la waqtigaaga isaga dhumin isaga tag isaga tag hadaad arrintan wax ka qaban karin isaga tag markii waa mamnuuc waa sharci darro wuxuu la kulmay gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti iyo ninka Africa Unity election wuxuu la kulmay ninka la leeyahay Roble waa sharci darro waa unofficial waa sharci darro أنا تكسيتك خير بعد كتير قولي يا قبل ما تكتير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.